farxiyo jaamac ka tirsan ururka tusma oo ka dhisan magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska iyo aqoon-yahan Saalax Daahir Barre oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Sanaag ayaa ka hadlay saameynta abaartu ku yeelatay deegaanada galbeedka gobolka Sanaag waxayna si qoto dheer uga hadleen waxyaabaha ay ku soo arkeen kormeer ay ku soo mareen deegaanadaas iyagoo gudida abaaraha heer qaran xukuumadda Soomaaliland iyo saddexda xisbi qaran ku dhaliilay inay ka gaabiyeen samata bixinta dadka abaaraysan ee ku dhaqan deegaanada gobolka waxaan doonaynaa inaan isdul taagno abaaraha iyo awood darrida iyo iska indhatirka haysta galbeedka gobolka Sanaag wax laga argagaxo baan anagu soo aragnay waxaa jira maxay ahaydey in aad moodo inay ka go'an tahay Soomaaliland galbeedka Sanaag inay ka go'an tahay oo ay tahay bogcad madow oo ku dhex taala haddana Soomaaliland dadkii dunyadii horta way dhamaatay anyway waxa laakiin ka muuqda dadkii xitaa inaan la danaynayn dunyada waxay idin dadka loo badbaadiyo la inoo dadka iyo maxay ahaydey magaalooyinka iyo wax walba waxay ku dhisnaayeen tiirarka kaabayaasha ugu waaweyn ee aynu ku dhisanahay waxay ahaayeen xoolaha in dadka loo badbaadiyaa bay ahayd haddii ay taasi dhici weyday waxa muhiim ahayd in dadka la badbaadiyo waxaan aad uga xumahay oo wax laga xumaada ah gudida abaaruhu inay habeen madow wadada Burco iyo Ceergaabo u dhaxaysa ay marto oo aanay xitaa leydhka ku qaban qofka maxay ahaydey wadada ku ag dhimanaya ama ku ag baktiyaya aanay ku qaban waxa jira dhul badan oo kaamam laga sameeyay laakiin xitaa aan caafimaad darro iyo biyo darro intuba ay joogaan qofkii hadduu xooluhu ka dhamaadeen oo aanu caafimaadna haysan maxay ahaydey biyana haysan sidoo u noolaanayo cuntana iyada hadalkeed badaa waxaanu ognahay raashinku intuu yimaado in loo raro gobolada galbeedka ee aan maxay ahaydey abaariba hayn oo abaarta waxay soo joogtaa maxay ahaydey inteeda ugu weyn gobolka Togdheer bay ka bilaabantaa gobolka ugu xun ay abaartu haysaana waxa weeyaan gobolada ugu xun waa Sanaag iyo Sool iyo Saraar marka way si kala dayacan yihiin imka raashinkii ugu dambeeyay yimi ma waxay ahayd dhig joojin in la gaaro dadka baktiyaya ee dunyadii ka dhamaatay ee caruurtii dhimanay ee waayeelkii dhimanay caafimaad darro iyo gaajo la dhimanayaan mise waxay ahayd in gobolada galbeedka loo raro sheekadaasi meesha ay ka qununsan tahay anigu wali ma fahmin gudida abaaruhu goboladan abaartu saameysay sida xun ugu dhacday miyaan cidi ugu jirin waxay ahayd in dad loogu daro majority-ga iyaga la siiyo gudida qaranka baan ka hadlaya ee abaaraha haddii la siiyo dad aanay saameyn ay gudida abaaraha yihiin ma danqanayaan oo ma oga ilaa deegaankii ma aha wax allaaliyo wax meeshii ka jira ma oga waxay ku xisaabtamayaan deegaankooda wixii ka jira waanu garanaynaa laasiyarkii abaarihii galbeed ka dhacay gudida abaaru xoog bay saartay laakiin tan maanta dhacday sidii oo kale uma saameyn oo ugamay danqan taana waxaanu maxay ahaydey aad iyo aad ugu sii dhaliilaynaa dadka deegaanka ee aan meel laba ka muuqan ee siyaasadda ka ah maxay ahaydey saboolka ka ah ayaanu maxay dalka aan waxba ka ogeyn ee kii taga Hargeysana uu isbadhiibay aad moodo inuu intuu tagay maxay ahaydey dunida galbeedka wadamada galbeedka inuu iska badhiibay dhulkiisii uu ka tagay aad iyo aad baan uga xunnahay waa wax laga xumaado waanu cambaaraynaa gudida abaaraha bal waxa kaliya oo aanu doonaynaa inaanu ogaano dulmiga inta la eg waxa maxay ahaydey loogu geysanaya ma Soomaaliland baan ahayn ma dhibaato kala jirta ma cadaadin kala jirta wali ma naan fahmin jawaab baanu idinka sugaynaa dadka anagu waxaanu nahay qurba joog waxaanu xooga saari jiray Somalilandernimada ayaanu saari jiray haday ixtiraafyada tahay haday laamiyadisiyada tahay haday ribodada tahay dhakhtarada wax kasta iyagaanu xooga saari jiray Somaliland baanu anagu doonaynay aanu moodani in loo sameeyo dalkuna sidaa maxay ahaydey loo wadaagayo waxtarkeeda laakiin maanta waxa noo muuqata in maxay ahaydey anaguna aanu wax kale isku handaraabnay Somalilandna wax kale yaaliin bal waxaanu la yaabanahay dadkan dhimanaya weli raashinkii aan xitaa loo rarin
dad baanu ka qaadnay cidla iyagu xooliina dhammaadeen carruurtiina qaar dhimatay intii kalena ay dhaqaaqi laayihiin oo aanu garada qaar geynay kaan baanu ka dhisnay magaalada Fadhigaab la yiraahdo cid allaaliye cid ay u tirsantahay iyo cid tagaatoona ma jira ma hay'adaha islaamka gaalo iyo islaam u dira garan weydaan hadda idinku ka seexateen annagu waxaanu tagnay oo aanu soo marnay galbeedka gobolka Sanaag galbeedka gobolka Sanaagna waxaanu ku aragnay dad aad iyo aad u dhibaataysan oo ay dhibaatada meesha taala ay tahay mid argagax kugu ridaysa hadii aad aragto intii aanu maraynay gobolka galbeedka gobolka Sanaag waxaanu aragnay dad ay dhibaatadu aad iyo aad u saameysay dadkaas oo isugu jira maato caruur iyo dumarba leh meelaha aanu tagnay waxa weeye anagu ma aanan marin wadada weyn oo maanaan qaadanay isku xidha Ceerigaabo iyo Burco sida ay sameeyaan ama wasiirada dawladda ama se gudiyada loo saaray inay ka qayb qaataan oo ay dadka soo ogaadaan sida ay abaaro u hayso haddii aad ka soo qaado gudiga qaranka oo kale waxay maraan wadada dheer ayay maraan dhinacna ugama baydhaan wadada dheer bay maraan umana war hayaan wixii wadada qarkeeda sida ogtiin gobolka dhinaciisa galbeedka waxa la maraa oo ay maraan gudiga abaaruhu waxay maraan waqti habeena taasna war ay ku helayaan ma jirto hase yeeshee annagu waxaanu u baydhnay oo aanu gallay gudaha oo waxaanu tagnay reero jeesasa ayaanu u tagnay oo aanu soo aragnay dhibaatada ay qabaan qaarkoodna aanuba ka soo rarnay markii aanu adkaysan weynay si aanu ugu soo dhaweyno meelo ay biyo yaaliin oo biyo ku dhow yihiin haddii aan idinka soo qaado waxaad arkaysaa caruur yaryar baad arkaysaa oo maaha mid kaliya maaha laba maaha saddex waxyaabo badan meelo badan oo aanu sii marnay waxaad arkaysaa caruurta oo halkii ay taagnaayeen ilaa iyo markii ay noo soo muuqdeen ilaa iyo intaanu ka libdhaynay bartii ayay taagnaayeen caruurtaasi iyaga oo aan wax cunin raashin la'aan ay haysato ayay halka bartaa taagan yihiin cid alla cid u war haysa oo u tagtaana ma jirto taas waxa u eg tahay inaan cidina ka warhayn aan dawladi ka warhayn aan ururo ka warhayn aan ay xataa ururada mucaaradka ah ama se kuwa dawladda aanay ama kulmiye ha noqoto ama ha noqoto kuwa kale aan cid ka warhaysa aanay jirin diinaya dadka u jooga ama Hargeysa ama Burcoba ha noqotee maxay ugu dadaali waayeen dadka kan oo ay ugu kicin waayeen si loogu tago waxaad arkaysaa meelo kale wadada tan u baxda ama Caynaba u baxda ee dhinaca South-ka u baxda waxaad arkaysaa wasiiro maalin kasta ku sii socda ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa ururada oo iyagu maalin kasta wadada maraya ayaad arkaysaa wax tegaya dhinaca kan bariga oo u baxay ma arkaysid waxa laga yaabaa inay ka faanayaan boorka sidoo kale Farxiyo Jaamac iyo aqoon-yahan Saalax Daahir Barre oo hadalkooda sii wata ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay fulinta riigog biyood xukuumaddiisu ugu ballan qaaday degmada Garadag cid u tagta oo halka tagta ma jirto dadka waxa kale oo jirta in madaxweynuhu uu ku ballan qaaday in ceela loo qodo ka soo qaad ceelka loogu ballan qaaday madaxweynuhu abaarta horaanteedii uu ugu ballan qaaday Garadag abaarta horaanteedu madaxweynuhu yidhi ceel weyn laga qodaa ilaa maanta ceelkii waa la sugayaa oo lama qodin taasna waxa weeyaan waa inay ka jawaabtaa wasaaradda biyuhu waa inay ka jawaabtaa oo waxa sababta loo qodi waayo ceelkan ay sheegaan weeye ayaa loo baahan yahay jirtaa galbeedka gobolka Sanaag oo mane aad iyo mane u tahay ceelf weyn dhowr goor baa la xanqaaray oo la yiri waxa la idin soo saaraya biyo iyo riigag beenbeena maxay ahayday waxa jira imka ceelka huluul ee biirta ilaa ceelf weyn biyo uma dhaxeeyaan Garadag ceel Garadag baa laga cabaa nearly 150 riig oo soo galay oo Soomaaliland la siiyay ayaan ogahay oo aan riiq qura laga geynin maxay ahayday galbeedka gobolka Sanaag waxyaabaha la yaab kale maskaxdaydu qaadi weyday ayay ka mid tahay waxa jira Samater Foundation Group Fadhigaab oo maxay ahaydeen aad uga caawino oo aanu 540 kiish oo bariisa aanu bishii hore u dirnay bishana maadaama ay meeshii kaam noqotay waxaan ugu dirnay lacagnimo si ay ugu gaadho maxay ahaydey cidii loogu tala galay
iminka waxaa jira xitaa kuraas iyo alaab aanu soo raray oo aanu doonayno inaanu iskuullada iyo ku caawino oo imanaya dhowaan aanu idin tusi doono insha allah biidnillahi kariim. waxaa jira golo kale oo isna midaynta la yidhaahdo, midaynta galbeedka Sanaag ayaa jira oo isna bil walba maxay ahayday laga soo diro oo guddideed Somaliland joogto oo laga soo diro maxay ahayday caawimo oo laga gaarsiiyo galbeedka Sanaag. in badan baa jirta, waxaa jira de maxay ahaydeen golayaashiina laftarkooda haddii dadku aanan golayaasha ka soo caawinayn midba laga maarkeen. intii ay shirka jaraa'id ku guda jireen labada aqoon-yahan waxay ka jawaabeen su'aal warbaahintu weydiisay oo nuxurkeedu ahaa taageeridda ay u hayaan xisbiga kulmiye, iyagoo cadeeyay inay ka tashanayaan masiirka siyaasadeed ee shacbiga ku dhaqan deegaanada galbeedka gobolka Sanaag. bisaraaxa dadka galbeedka Sanaag waa dad wanaagsan, Somalilandernimaduna ay ku fogtahay. Siilaanyana waa runta, waa dhulkii laga soo doortay laga soo saaray, aanay la'aantood badda aanu soo baxeen. iminkana udubdhaxaadka waa xisbiga kulmiye, laakiin wax badan baa isbedeli doona oo maanta sidii ma aha. laino de halkayna dhigeen baanu aragnaa. Siilaanya haddaanu dooranay de wasiir qurana muusin ani malmanina wax walba waanu arkaynaa, laakiin wax ka weyn oo aanu ilaalinaa baa jira. Somalilandnimada iyo wax ka hooseeya wuu fahmaya aanu ilaalinaa baa jira, isagu se taana lama garan, dowladda kulmiyana lama garan maanta. laakiin wax weyn baa isbedelaya, wax weyn ayaa isbedelaya. Axmed Kaafi Salebaan Carab, wararka Burco.